soo dhawaada khiyaare wasaaradda nabadda ee waddankan Itoobiya ayaa waxay diyaarinaysaa dokumenti Itoobiya u ogolaanaya sidii ay uga heli lahayd faa'iidooyinkeeda dhanka istiraatiijiyadda iyo dhaqaalahaba badda cas. Dokumentigan ayaa Itoobiya u ogolaanaya inay dhisato deked ay wax kala soo degto waxna ka dhoofiso oo ay ka hesho badda cas iyo sidoo kale waliba inay ilbaab ay ka hesho gacanka cadmeed. dokumentiga waxa lagu sheegay in Itoobiya danaheeda ay ku ilaashan doonto gaar ahaan iyadoo kaashanaysa wadamada dariska gaar ahaan dhanka istiraatiijiyadda iyo horumarka iyo waliba caqabadaha ka haysta sidii xal waara loogu heli lahaa. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa maalmahan hadal uu ka jeediyay golaha wakiilada shacabka waxa uu dhaliyay hadal hayn badan. dhanka kalena dawladda Eritrea ayaa iyadu ka jawaabtay hadalkii ra'iisul wasaaraha ee ahaa in Itoobiya meelaha ay daranayso ay ka mid tahay dekada casab. dawladda Eritrea oo maanta soo saartay warmurtiyeed la soo marsiyay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi ayaa waxay sheegtay in arrimaha looga hadlayo biyaha iyo badda iyo waliba qodobada la xiriira ay waayay dambe xadkii loo baahnaa dhaafeen. waxayna sheegtay in arrimahan dadka daneeya ay ku wareersan yihiin gaar ahaan hadalka ka soo baxay dawladda Itoobiya ee ku saabsan helitaanka dekada casab iyo waliba Masawa. dawladaha Itoobiya Shiinaha ayaa waxay kala saxeexdeen 14 heshiis kuwaas oo lagu soo xoojinayo xiriirka labada dal. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta booqasho ku tagay waddanka Shiinaha halkaas oo uga qayb gali doono shir ay ka qayb gali doonaan in ka badan 100 waddan oo looga hadlayo mashruuca jidka Belt and Road Initiative-ka loo yaqaan kaas oo Shiinuhu hirgelinayo. wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya Ambassador Burtukan ayaa waxay sheegtay in labada dal ay kala saxeexdeen 14 heshiis kuwaas oo lagu soo xoojinayo xiriirka waddanka. 14 heshiis ayaa waxay ka kooban yihiin 4 qaybood waxaana kamid ah dhinacyada beeraha, horumarinta dhaqaalaha cagaaran iyo magaalooyinka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo waliba mashruuca Belt and Road Initiative kaas oo isaguna qayb weyn ka qaadan doona horumarka qaaradda iyo waliba adduunka qaybihiisa kala duwan. sidoo kale waxaa ka mid ah isdaafsiga cududa shaqaalaha dhaqanka dalxiiska iyo waliba caafimaadka. xisbiyada mucaaradka ayaa waxay aad uga qaliyeen xeer dhawaan la filayo inuu ansixiyo golaha wakiilada kaas oo muwaadiniinta soo doorta xildhibaanada u ogolaanaya haddii ayna ku qanacsanayn qaabka uu u matalo inay kalsoonida kala laaban karaan. xisbiyada mucaaradka ayaa waxay sheegeen in sharcigan looga dalinayahay in baarlamaanka looga caydhiyo xubnaha xisbiyada mucaaradku ay ku leeyihiin. sharcigan oo wali doodiisu ay socoto ayaa waxaa la filayaa dhawaan inuu ansixin doono golaha wakiilada shacabka ee waddankan Itoobiya. shacabka Itoobiya ayaa sidoo ku xusan xeerkan waxay codka kalsoonida kala noqon karaan baarlamaanada ay ku leeyihiin deegaanada iyo dawladda federaalka labadaba. xisbiyada mucaaradka ee ka hadlay hawshan ayaa waxaa ka mid ah xisbiga dimuqraadiyadda shacabka walayta, xisbiga midnimada loo dhan yahay ee Itoobiya MAEAD, xisbiga walane, xisbiga Ethiopian Socialist Democratic Party kuwaas oo dhamaantood isku raacay in sharcigani uu wadada u xaadhiyo in xubnaha kooban ee xisbiyada mucaaradka ay ku leeyihiin golaha wakiilada laga xaadho isla markaana codka kalsoonida shacabku qaabka uga noqon lahayn dawladdu ay ka shaqeyso. waxayna guddiga doorashooyinka oo isagoo sharcigan soo diyaariyay ka codsadeen in laga laabto sharcigan. xisbiga mucaaradka ee Naad Party ayaa waxa uu ka baaqay in dib loogu celiyo imtixaankii ardaydii u fadhiisatay sanadkan ee ku daatay 97%. xisbiga mucaaradka ee Naad Party ayaa waxa uu dawladda ugu baaqay in loogu celiyo imtixaanka ardaydii fasalka 12aad ee sanadkan ku daadatay imtixaankaasi. xisbiga ayaa waxa uu sheegay in calaamad su'aal dul hooganayso wasaaradda waxbarashadu inay sheegto in 97% arday imtixaankaasi martay ay ku daateen taas oo muujinaysa sida wasaaraddu ay ugu fashilantay qaabka imtixaanka u soo diyaarisay sida ay u saxday waliba qaabka u qiimeysay taas oo xisbigu sheegay inuu yahay hanan aan laga fiirsano cilmi ku dhisnayn. xisbiga waxa uu sheegay in natiijada ay soo saartay wasaaradda waxbarashadu oo ardayda imtixaanka ku dhacday uu ku abuuray dhibaatooyin cilmi nafsi ah iyo waliba mid saameyn ku leh mustaqbalkooda. waxa uu xisbigu soo jeediyay in wasaaradda waxbarashada laga hosaaro arrimaha dhanka siyaasadda ee dawladda uga imanaya. akhiyaare warkeena caawana wanaga intaas.